soo dhowaada asxaabey walaalkiina barqada maanta inii wada qiso kaloo aad u xanuun badan ka hor intaana bilaabin nagow inaad muuqaalkan like saartid channelka dadka cusubtaana subscribe-ta naga ilmaamin let's go bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa xaafad yar oo ku taalla bariga nigeria ayaa waxaa ku noolay laba gabdhood oo saaxiibo ah kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray adana iyo weliba bislo. adana iyo bislo waxay hayeen saaxiibo isugu wanaagsanaad waxayna saaxiibtinadooda kusoo bilaabatay xilliga ay dugsiga dhexe soo dhigteen dugsiga sarena ay isla dhameeyeen xitaa ay jaamacaddii isla galeen inkastoo labadooda laba kulliyad oo ay kala duwanayd doorteen. adana waxay baranaysay cilmiga isgaarsiinta halka saaxiibadeeda iyadana ay baranaysay cilmiga la xiriira biochemistry-ga. si kastaba haatee adana iyo weliba bislo goortii ay jaamacaddii labadooda kasoo qalinjibeenna shaqo ayay raadsadeen ugu dambeynna shaqo ayay heleen sidaas ayayna labadooda ku noolaadeen. si kastaba haatee xilligaasi waxaa jiray in adana ay la kulantay wiil lagu magacaabo adamu kaasoo kasoo jeeda qoys taajiriina isagana bilineer kale uu yahay. waxayna bilaabeen labadooda inay isku soo dhowaadaan jaceylna ay halkaasi ku jilaan inkastoo ninkan adamu xitaa saaxiibadeeda uu tixgelinaya sida walaashiisoo kale. labadooda ayaana mar walba waqti qurux badan qaada jiray arrinkaasi laakiin bislo ma uusan farxad gelin sababtoona uu farxad gelinna waxa ay tahay in adana ninkaas waqti badan ay la qaadanayso saaxiibadeedna waqti ayay siinayso. maalin ayay la fadhiistay waxay tiri saaxiib maxaa kuu dhacay aniga saaxiibada ku wanaagsan ayaan nahay ninkaas ayaana waqtigaada badan gelinaysaa sida camal adana ayaana saaxiibadeed ku tiri saaxiibay ninkaas waxaan doonaa inaan isguursanno sidaa darteed ayaan waqti badan isla qaadanaynaa. isla markiiba bisla ayaa kasoo dhex gashay waxay tiri saaxiib waa ogtahay ninkaasi qoys taajiran ayuu kasoo jeedaa ma malaynaysaa qoyskooda inay ku aqbali doonaan. kadibna waxay tiri ma sheegi karo laakiin waa rajeynaa inay aqbalaan. adana ayaana usii raacsiisay saaxiibadeed inay ka raali gelisay maalmahan inay iyada waqti sii weysay waxayna u sheegtay wax walba inay wanaagsanaa doonaan. maalinkaa wixii ka dambeeyana adana saaxiibadeeda ma aysan goyn sidaasoo kale waxay waqti qurux badan la qaadanaysay ninkii adamu ahay. adamu gabadhaani aad buu u jeclahay 6 bil markii uu kasoo wareegay xiriirka adana iyo weliba adamu maalin ayuu wuxuu u soo bandhigtay oo wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan guursaday miga aqbalaysaa iyadana way aamini weysay waxayna u malaynaysa inay riyoonayso isla markiina waa ay ka aqbashay. adana goortii loo soo bandhigtay guurkaasi iyadoo farxsan ayay isla markii warkii farxadda la wadaagtay saaxiibadeeda iyadoo u sheegtay ninka adamu inuu u soo bandhigtay inuu iyada guursado laakiin arrinkaas iyada kuma aysan farxin bislo iyadoo wejigeeda murugada laga dheehan kara ayayna waxay saaxiibadeeda ku tiri saaxiib waa ku hambalyanayaa laakiin waxay tiri saaxiib ma u malaynaysaa ninkaasi qoyskiisa inay ku aqbali doonaan maadaama isaga qoys taajir uu kasoo jeeda adigana qoys hoose aa kasoo jeedida. kadibna waxa ay tiri ma sheegi kara saaxiibay laakiin waa rajeynaya inay aqbalaan. adana ayaana sidaasoo kale u raacsiisay in ayada loo geliyey faraantiga arooska sidaa dartiisna qoyskeeda iyadoo ay aqbali doonaan. si kastaba haatee bisla ayaa saaxiibadeed waxay ku tiri saaxiib waxaan rajeynayaa qoyskas inay kusoo aqbali doonaan wixii hadda ka dambeeyana ku noolaa doontii nolol aad u qurux badan. adana ayaana saaxiibadeed uga mahad celisay waxayna tiri wax walba waxaa ka weyn jaceylkan iyo asaga noo dhexeeya sidaa darteedna wax walba ay wanaagsanaa doonaan marka adigana niyadaada khayr u sheeg ayay ku tiri adigana waa kaaga mahad celinayaa garab istaagkaaga iyo weliba dhiirigelintaadaad siisay waxaan rajeynayaa wax walbana inay si wanaagsan noogu soo dhammaadaan. kadibna saaxiibadeed ayaa ku tiri okay saaxiibay laakiin la soco marka adiga aa guursatay aniga hilmaaminaya. adana ayaana saaxiibadeed ku tiri maya lagama yaabo sababtoo waan ogahay booska weyn adiga agteeda ka fadhiso markaa ka cabsan wax walban waxaan rajeynayaa si wanaagsan ay ku dhammaan doonaan. 2 maalin markii ay kasoo wareegatana ninkii adama wuxuu soo aaday guriga ay ku nooleed adana waxauna doonayay inuu u qaado dhankaas iyo gurigiisa si uu halkaas waalidiintiisu soo baro. xilligaasna baabuur qaali ayuu watay gurigeeda ayuuna soo hor istaagay iyadana waa ay soo baxday iyadoo dhar qurxoon wadata. adamu ayaana gabadhii waxa uu ku yidhi waaw maanta aad baad u nuuraysaa waana qurux badan tahay. xilligaasi waxaa jirtay gabadhii kale ee bislo daaqadda ayay saaxiibadeeda ka daawanaysay xilligii ay sii bixaysay. bislo kuma aysan faraxsanayn saaxiibadeed noloshaasi ay gelayso si kastaba ahaatee 4 saac markii ay kasoo wareegatay ayaa bislo mobilkeeda soo dhacay goortaysa mobilkii fiirisay saaxiibadeed ayay noqotay waxayna tiri waxaan rajeynayaa qoyskaas inay kusoo diiri doonaan iyadoo sugaysa war xun. goortii mobilkii qabatana saaxiibadeed ayaa waxay ku tiri saaxiibay hambalya dheh iyadoo farxadda laga dareemayo waxayna ku tiri qoyskii aadamuhu way soo aqbaleen gacmo furan ayayna igu soo dhoweeyeen sidaasoo kalena waxay ballan qaadeen arooskeenna aanteeda kale kugu dara saaxiibay bisha malabkana waxaan isku raaci doonaa halkaasi baariis. goortay hadalkaasi bisla maqashay wadnaha ayaa gariiray aad bayna uga carootay arrinkaasi laakiin saaxiibadeed dareensinaya waxay tiri saaxiib waan ku hambalyanayaa mustaqbal wanaagsan ayaana ku ridanayaa. cidana mobilka ayaa dhigtay iyadoo aad u murugaysanayeen dhankaas miraayadda soo aaday waxayna fiirisay nolosheeda waxay tiri maya sug maxaa ka qaadanaya ninkaasi aniga xitaa mii jeedi waaye
gabadhaasi inaan aad uga qurux badanahay laba su'aal isma weydiinayso muxuu aniga ii guursan waayey waxaan u malaynayaa ninkaasi taajirka inay isaga wax ka khaldanaayeen laakiin taasu ma ogolaanaya saaxiibaddayda inay noloshaasi quruxda badan ay ku noolaato ninkaasna waa inuu aniga ii guursadaa sababtoo markii horeba gabadhaas ayuu arkay hadduu aniga i arki lahayd maba aadi lahayn su'aalahaas ayayna maraayadii isku weydiisay waxayna ballan ku qaaday inay burburi doonto nolosha saaxiibaddeeda maadaama iyada ay kala wareegtay ninkii ay mustaqbalka ku riyoonaysay kaasoo ahay ninkii taajirka ahay si kastaba haatee waxay tidhi aadamu aniga ayaa iska leh 2 bil markay ka soo wareegatana waxaa la bilaabay in la waqaabiyo arooskii aadamu iyo weliba adaana door weyn xilligaasna waxaa ka cayaaraysay gabadhii lagu magacaabay bislo oo waxyaabaha xilligaas loo baanay iyada ayaa loo dirayey maamadii xitaa aadamu dhashay gabadhani waa ay la yaabtay say saaxiibadeed mar walba garabkeedu taagan tahay maalin ayayna waxay israaceen ninkii aadamu waay wuxuuna yidhi adiga saaxiibaddaa boos fiican ayaad u buuxisay weliba saaxiibkaa wanaagsan inay heli doonto muu malaynaye bislona waxay bilowday inay iska sii dhigto qof wanaagsan iyadoo saaxiibadeeda xitaa u sii ammaantay si kastaba aatee maalinkaas sidaas ayuu ku gudbay maalinkii xigayna markii la gaaray waa maalinkii uu dhacayay adaana iyo weliba aadamu arooskooda waxaana loo dhigay xaflad aad u weyn weliba iyadoo xilligaasi laga dareemay magaalada dhan arooskooda weliba wuxuu ahay aroos aad u qurux badan dad badan oo ganacsadayaalna ay ka soo qayb galeen adaana iyo aadamu arooskooda markii 3 bilood ay ka soo wareegatana war farxadda ayaa soo yeeray taasoo ah adaana inay uur qaaday arrinkiina saaxiibadeed ayay la wadaagtay iyadoo u sheegtay warkaasi farxadda leh saaxiibadeeda bislina way uga hambalyeysay iyadoo u sheegtay inay u rajeynayso inay dhasho ubad khayr qaba si kastaba ahaatee 6 bilood markay ka soo wareegatay ugu dambayntii gabadhii waa ay dhashay waxayna dhashay wiil yar aad u qurux badan kaasoo loo bixiyey prince dhalashada cunugaas yarkaana qoyskii wuxuu ku sii beeray farxad iyo weliba nolol aad u qurux badan 3 sano markii ay ka soo wareegatana aadamu iyo adaana waxa ay dhigteen xaflad ay ugu dabaaldegayaan sanad guuradoodii 3 sano kadib markii ay isguursadeen sidaasoo kale waxay ku casuumeen saaxiibadeeda qaaliga taasoo ahayd bislo maamadii dhashay aadamu gabadhaani si adag ay saaxiibadeeda mar walba u garab daaganta markaa aragtay waxay tidhi wiilkale haddii aan dhalin lahay isaga ayaan basiisa lahay maadaama iyaday tahay gabar wanaagsan xilligaas aadaama uu maqlayay ayaa hooyadiisa ku qoslay si kastaba aatee xalfadda sidaas ayay ku dhammaatay laakiin maalin maalmaha ka mid a waxa dhac war kale aan la filaynin adaana waxaa laga soo wacay dhankaas isbitaalka waxaana loo sheegay saaxiibadeeda qaaliga ahayd inay nafteeda ay dili gaadhay haddana isbitaalka ay ku jirto iyadana waa ay soo orday dhankaas isbitaalka ay soo aaday iyada oo xilliga is weydiinaysay sababtay saaxiibadeed u doonaysa nafteeda inay goyso ugu dambayntii waxay soo gaartay dhankaas isbitaalka gabadhii fadhiisay receptionka ayayna la hadashay waxayna ka xustay in loo ogolaado inay gudaha u gasho ugu dambayntiina iyadii waa loo ogolaaday kadibna qolkii saaxiibadii ay toos soo gashay waxayna tiri saaxiibay maxaa kugu dhacay maxaad u doonaysaa naftaad inaad goyside maxaa noloshaada ku soo kordhay waad ogtahay ilaa yaraanteennii saaxiibo ayaan nahay maxaa kaa qaldan dhibka jirana muxuu yahay maxaadda naftaada u goynaysaa iyadoo weliba ilanta saaxiibadeeda ay ka daadanaysaa kana naxsan saaxiibadeeda sababtii u doonaysa nafteeda inay goyso bisle oo xilligaasi sariirta saarneed ayaa wax yar soo jilleecsatay waxayna bilowday inay hadasho waxayna ku tiri adaana ma waxaad i weydiinaysaa waxa aniga iga qaldan waad og tahay nolosheedii iyo weliba meesha ay ku dambayso iyo weliba meesha aan joogo adigana nolosha quruxda badan aa ku nooshahay teeda kale aniga keligay guriga ayaan ku noolahay xilligii iskuulka xitaa isla dhiga jirnay aniga waad og tahay wiilasha saas uma badnayn adigana wiilasha aad baad ugu waalneed haddana ugu dambayntii waa guursatay anigana keliga ayaa gurigii ku soo haray marka sidaa darteed guriga ayaa waxaan ku dareemay kelinnimo depression stress iyo wax walba saaxiibadeed markay maqshintaasi aad bay u naxday waxayna sidaas oo kale ogaatay sida iyada u guursatay saaxiibadeed inay waqti badan aysan siin waxayna bilowday inay wax walba ay dusha saarato waxayna tiri saaxiibay iga raali noqo waan ogahay qalad weyn ayaan galay booskii saaxiibtinimadu waa buuxi waayey laakiin hadda wixii ka dambeeyey si wanaagsan ayaan kula dhaqmi doonaa 2 maalin kadib adaana goortii gurigay ku soo laabatay waxay bilowday inay ka fakarto arrinka saaxiibadeeda kadibna ninkeeda ayaa xilligaas u yimid jaceylkaygii maxaa kugu dhacay ma wax dhib ayaa jira su-aashaasi markuu weydiiyey isla markii waxay bilowday iyadana wax walba ninkii inay u sheegto waxayna ku tiri saaxiib waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin la xidhiidha saaxiibadeeda qaaliga ee bislo waxay keligeed ku nooshahay guriga sidaasoo kale waxaan ka cabsanayaa nafteeda inay waxyeello u geysato maadaama maalin dhoweed ay go'aansata nafteeda inay goyso laakiin ay badbaaday marka ninkaygii waxaan doonayaa saaxiibadda inaan badbaadiyo oo aan mar walbana garabkeeda aan taagnaado sababta waxaan ogahay booska igu jirto ee marka adiga hal asxaan ma ii samayn kartaa isla markiina wuxuu yidhi wax walbaad u baahanta aniga weydiiso haddaan ayaan isla markii waxa ay tiri saaxiibaddii halkaan ma keeni karaa oo inaga ma nololka noqon kartaa sababta waxaan doonayaa wax walba inaan iyada nolosheeda aan ka ogaado si ay gurigan kelinnimo aysan ugu dareemin aadamu ayaan isla markiiba arrinkaas gaashaanka
ka dururay waxa uuna yidhi macquul maahan lagamana yaabo saaxiibadda in annagana la noolaato wuxuuna sidaas oo kale u sheegay inuu maqlay sheekooyin la xiriira asxaabta kadibna noloshooda ay burburiyaan waa uuna ka diiday wuxuuna yidhi lagama yaabo saaxiibadda in halkan la keentid laakiin arrinkaasi aad bay uga murugootay Adana waxayna tiri ma wax dhib ayaa ku jira haddii halkan ay nagula noolaato laakiin ninkaas waa uu ka diiday maalmihii xigana waxay bilowday ninkeeda si xun inay ula dhaqanto xitaa ninkeeda waa uu la yaabay cuntadii xitaa uma karinayso mar walbo maaga la hadalna iyadu waabay ka aamusaysaa maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen ninkanna wuxuu ogaaday inay Adana isbeddeshay maalin ayuuna u yimid wuxuuna ku yidhi jacaylkaygiyey maxaa ku dhac maalmaha waa iska indhatiraysaa sida kale ma wixii aan ku dhahay saaxiibadda ma keeni kartid ma iga anaaqsan tahay hadda saaxiibadda waa keeni kartaa waa in nala noolaa kartaa hortii intaasi maqashan Adana aad bay u farxday waliba iyadoo farxadeeda la qiyaasi karin ayay ninkeeda u mahad celisay isla markiina moobilka ayay daftiri saaxiibadeeda iyo arrinkii la wadaagtay iyadoo sheegtay guriga inay timaado 2 maalin kadibna saaxiibadeeda buursooyinka ay soo xiriiratay ugu dambeynna waxay timid gurigay saaxiibadeeda ku nooleeda saaxiibadeeda ayaana halkaasi ku soo dhaweysay waxayna tiri saaxiibay halkani ku noolow si kastaba haatee maalmihii xigay waxay bilowday Bislo inay jikada gasho saaxiibadeedna xitaa cuntada u kariso sidaas oo kale ay u soo dhawaato ninkii Aadamu xitaa waa uu la yaabi jiray sida gabadhan ay mar walba ugu soo dhawaanayso laakiin isaga isku muusan mashquuli jirin maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen iyagoo isbuucyada isugu dhiibayay asbuucyadana bilaha ay u dhiibayeen sidaas oo kale waxaa xanuustay gabadhii yarta ee Adana weliba isbitaalka ayaa loola cararay xitaa dhakhaatiirtii wax way ka qaban waayeen oo waxay isku dayeen inay baaritaan badan ay ku sameeyaan nasiib darase waa ay ku guuldaraysteen sidaas oo kale ninkii Aadamu mar walba isbitaalka kama uusan degi jirin saaxiibadiisa ayuuna mar walba garabkeeda taagnaay dhan kale aan usoo laabanno gabadhii Bisli maadaama saaxiibadeeda xanuunsatay waxay go'aansatay guriga inay ka tagto laakiin ninkii waxaa la hadlay Aadamu wuxuuna ku yidhi maxaa kaa qaldan waad ogtahay saaxiibadda ayaa xanuunsan marka waa inaad halkaani joogtaa wiilka yarkaana aad garabkiisa taagnaataa Bislona waa ay ka aqbashay wiilkan yarka ee princeska wiil wuxuu ay caqli badan maalmaha ka mid ayuuna waxa uu weydiiyey Bislo wuxuu ku yidhi markaad gurigaani timid maxay hooyaday u xanuunsatay iyadana waxay ku tiri wiilka yarka taas shaqadaada ma ahan ee keliya noloshada waa inaad raacdaa 6 bilood kadib xanuunkeedii Adana waa ku sii siyaaday ilaa xanuunkaasi markii dambe ay u geeriyootay goortiisa ay geeriyootay ninkii Aadamu arrinkaas aad buu uga murugooday wuuna aamini waayey qofkii isaga si dhabka u jeclaay xeelka dhabtaana uu siiyey maanta inay ka geeriyootay sidaas oo kalena cunugeedii ay sidaasi ku cidlaysay si kastaba haatee dhinaca kale aan soo aadno Bisla ugu dambeyntii hadda waxay ku guulaysatay qorshii ayada ay doonaysay taasoo ninka inay hadda gacanta ku dhigtay waxayna bilowday ninkii inay u soo dhawaato cunto u diyaariso sidaas oo kale cunugii yarkana si wanaagsan u dhaqantay oo dareensiinaysa inay sidaas oo kale weysay tahay si kastaba haatee arrinka sidaas ayuu ku socday 3 bil markii kasoo wareegatana iyada waxay go'aansataba markaan guriga inay ka tagto boorsooyinkeeda ayayna xeelatay Aadamu ayaa arkay kadibna wuxuu yidhi si camal Bislo masyan ayaa nooga tegaysaa sida kale waad ogtahay saaxiibadda inay geeriyootay marka maciladan ayaa nooga tegaysaa sida kalena waad ogtahay jir anigu waan shaqeeyaa laakiin ayadii way macnaysaba waa ayna diiday waxay tiri meeshaan ma joogi karo ninkaana isla markiiba uu fikir hooyadiis ayuuna wacay wuxuuna ogaaday halka meel oo gabadhan ka soo mari kara inuu yahay hooyadiis ayuuna la hadlay wuxuuna ka dalbaday inay gabadhan la hadasho ugu dambeynna ayadii ayaa la hadashay waxayna tiri gabadhaydii waan ogahay gabar wanaagsan ayaa tahay welina xanuunna dareemaysa maadaama saaxiibadda ay kaa geeriyootay marka waan ku baryaa gabadhaydii la jooga sababtoo ninkan jiro ganacsigiisa ayuu ku mashquulsan yahay wiilkaas yarkaana wuxuu rabaa qof daryeesha marka gabadhaydii waan ku baryaa iyadana kama aysan diidin way u dhalacdaysa kadibna waxay tiri okay hooyo macaan aniga ayaa la joogayaa gurigan ayaana ku sugnaanayaa Aadamu markuu intaas maqal aad buu ugu farxay maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen iyagoo asbuucyada isugu dhiibaya asbuucyadana bilaha ay u dhiibayeen guriga ayay intaas ku sugneed Bislo intay gurigaas ay ku sugneed ninkan Aadamu iyo weliba cunugiisa yarka ee princeska si fiican ayay u dhaqmi jirtay wax walba u baahan yaana way u samay jirtay iyadoo mar walba jisi jirtay wax wanaagsan ay samaynayso habeenada ka mid isagoo iska hurdaya saq dhexe albaabkii loo soo garaacay kadibna waa uu yaabay waxaana ku dhahayaa waaye isla markiina Bisla ayaa waxay ku tiri aniga waaye Aadamu goortuu maqla waa uu la yaabay wuxuuna isweydiiyey wax ka qaldan iyo weliba xilligan waxay ka doonaysaa qolkayga isla markiina wuxuu ogolaaday qolka gudaha inay u soo gasho Bisla ayaana qolkii gudaha u soo gashay xilligaasna waxay xirneed dhar yar oo ayada ku dhagan kadibna waxay bilowday ninkiina la hadashay waxayna tiri cabsi ayaan dareemay oo riyo qaabdan ayaan ku riyooday marka sidaa darteed ayaan albaabka u soo garaacay kadibna Aadamu ayaa waxa uu ku yidhi intaas leemiyaa kadibna gudaha ayuu u ogolaaday waxayna ku yidhi anigii la soo seexo
iyadana waa ay ka aqbashay kadibna ninkay u soo dhawaatay subaxigana ninkan wuxuu bilaabay inuu ka murugado wixii xal uu sameeyey sababta uga murugadana waxay ahayd in xaaska sare ay dhimatay saaxiibadeeda qaaliga inuu ayada u dhawaaday laakiin xilligaas waxa u timid bislo kadibna waxay uga tacsiyey wixii ku dhacay waxayna tiri wixii xal dhaas wax weyn maahayn wax caadi ayayna ahaayeen ninkayana bilaabay inay maskaxda dejiso wixii intaasi ka dambeeyna waxay bilowdaba ninkii ay u soo dhawaatay qolka ay jiifato tan ay ka soo wareegato ay ninka la jiifato goortaysa intaasi ku guulaysatay kadibna waxay noqotay maamulada guriga kadibna ninkii aadamu ahay waxa uu go'aansaday inuu arrinkan official ka dhigo waalidiintiisana uu la wadaago wuxuuna u sheegay inuu hadda doonayay gabadha bisle inuu guursado waalidiinta markii hore ay sheekadaasi maqleen waa ay la yaabeen ugu dambaynna waa ay ka aqbaleen waxayna ogaadeen gabadhan inay ku habboon tahay in ninkan uu guursado sababtii ugu wacneedna waxa ay ahayd maadaama cunugan yarka ay si wanaagsan ay u daryeelayso aamin ayaana waxay ku tiri wiilkaygu waan kugu raacsanahay waa inaadna gabadhaasi guursataa aadamuna markuu intaasi maqla aad buu u farxay hooyis ayuuna uga mahad celiyey inkastoo ay ka cabsanayeen arrinkan dadka bulshada si qaldan inay wax uga qaataan wuxuuna go'aansaday inuu ka dhigto arooskiisa markuu isaga safarkiisa ka soo laabto maadaama hadda uu qorsheynayay safar inuu aado laakiin meerkiisa keliya ayuu sii dhigtay kadibna xaaskiisa iyo macsalaan wuxuuna ku yidhi hal bil ayaan soo maqnaanayaa bisha markaan guriga ku soo laabta ayaan is aroosaynaa iyadana kama aysan diidin oo waa ay ka aqbashay kadibna waxa uu go'aansaday safarkiisa inuu aado hal bilna iska soo maqnaado waa uuna iska safray subaxyada ka mid sida cadeeda bisla hurdada ayay ka soo toostay laakiin markaan waxay la soo baxday weji kale aan la filaynin bisla waxay bilaabay cunug yarka inuu wacdo xilligaasna waa uu hurdayay qolka ayay usoo gashay kadibna sariirta ayay ka soo tuurtay weliba iyadoo caraysan cunugii yarkaana dhulka ayuu ku soo dhacay hortase dhulka sidaas ugu soo dhacay uu bilaabay inuu ooyo isla markiina dharbaxsho ayay ku dhufatay waxayna tiri aamus cunug ciyaal suuqa cunugii yar oo yaaban ayaa yidhi hooye si camal see wax wataa kadibna waxay tiri aniga hooyada maa cuniyow dharbaxsho kale ayaynu celisay kadibna waxay ku tiri dhegayso intaan dharbaxsho kale aan kugu celin waxaan kaa rabaa hadda jikada inaad gashid kadibna alaabtooda iga nadiifisid sababta hadda wixii ka dambeeya gurigan boqoradana ayaa ka cunugii yarkaana ma uusan diiday isla markiiba isaga ooyaya ayuu dhankaasi jikadii aaday goorta uusu jikadii soo galay wuxuu arkay alaab badan oo wasaq oo halkaani taalla kadibna wuxuu bilaabay alaabtii inuu dhaqo waana markii ugu horraysay ee howlaha noocaana uu samaynayo cunugii yarkaana wuxuu xasuustay in aabiisadii xilligan uu joogi lahay inuu isaga badbaadi lahay islaantanna uu ka celi lahay si kastaba haatee cunugii yarka alaabtii ayuu dhammeeyey kadibna wuxuu u yimid bisle wuxuuna ku yidhi ooy baahi ayaan dareemayaa waxaan u baahanahay cunto inaan cuno bisle ayaa cunugii u qorshaday waxayna ku tiri hadda cunto ma hayo laakiin cuntada kugu sokaysa waxaad cuni doontaa 9 saac markii la gaaro sababtoo ma doonaya cuntada inay dhammaato waadna ogtahay aabbaha guriga inuusan joogin cunugii yarka markuu intaasi maqlana wuu iska ooyey kadibna wuu iska soo tegey waxauna yidhi hooye macaan aad baan kuuga xisay qolkiisa ayuuna ku soo laabtay si uu halkaas ugu sugay inta 9 saac laga gaarayo laakiin mar ay 8 saac tahay ayaa waxaa soo qaylisay bisle cunugii yarka ayayna u yeertay isagana qolka ayuu ka saararay kadibna waxay ku tiri waxaan ku weydiinayaa alaabta markaa dhammaysay maxaa jikada u tiri weysay kadibna waxa uu yidhi laakiin adigii maadna sheegine kadibna waxay tiri ma waxa iga sugaysa in aniga kuu sheego wax hadda hawshaan soo dhammeey cunugii yarkaana hayayuu yidhi laakiin intuu bixin wuxuu yidhi baahiyaan dareemaya waan ku baraya waxaan cunaysi sababtuu 9 saac waaba loo dhow yahay laakiin waxa ay bilowday cunugii yiriiska inay ku qoshiso kadibna waxa ay ku tiri maxaa kaa qaldan madax maa lagaaga jiraa ma ogtahay hadda qalad weynaa gasho jikadii aad tirin qaladkaas aawigiis aa samaysana oo aadna jikada tirtirin waxaan doonayaa inuu cashir kuu noqdo cuntadaana waxaad cunaysaa saacaddu markay tahay 9 habeennimo haddana waxaan kaa rabaa jikada inaad dib ugu laabatid meeshaasoo idilna iga soo nadiifisid cunugiina waa uu yaabay isagoo naxsan ayuuna isla markii meeshii ka cararay kadibna wuxuu bilaabay jikadii inuu tirtiro inkastoo cunuga uu ahay cunug yar haddana wuu isku dayay inuu howlii qabto ugu dambaynna jikadeedii waa uu tirtiray goortuu dhameeyeyna qolkiisa ayuu ku laabtay wuxuuna bilaabay cunugii yarka qolkii inuu halkaa isaga ooyo isagana murugoodo isagoo isweydiinaya intuu aabihiisa ka soo laabanayo si kastaba haatee si uu isaga ooyayey ayaa isla markii waxa ugu yeertay bislo maray saacaddu ku beegan tahay 7 habeennimo waxayna bilowday inay siiso 2 xabo rooti iyo biyo waxayna ku tiri cuntadaas cunugii yarka markuu cuntadii uu arkay waa uu la yaaba kadibna wuxuu ku yidhi eedda si camale aniga cunto sax oo nafaqal ayaan rabaa waxaan cunto maahan kadibna waxay tiri kaalay tan dhagax miyaa dhegayso haddaan cuntaan u baahnayn ii sheeg eyga bannaanka jooga ayaan siinayaa cunugii yarkaana isla markiiba 2 xabo rootiga ayuu qaatay maadaama isaga baahi saa'id uu dareemayey maanta idilna wax cunto uusan cunin kadibna cuntadii yiriiska ayuu iska cunay aan u soo laabanno bisla habeenkii waxay wacday ninkeeda iyada u sheegtay inay aad uga xiistay isagana sidaasoo kale waxa uu ku yidhi aad baan kuga xiisay laakiin wuxuu u sheegay inuu isaga soo laabanayo
barnaamijkii ganacsigiisana oo uu soo dhammaaday. Bisla markay intaasi maqasho waa ay ku naxday, kadibna waxay ka walwashay ninkeeda wax walba inuu ogaado, waxayna ku tiri okay ninkay waan ku sugayaa. kadibna mobilka ayay ku jirtay, waxayna bilowday in arrinkan ka fikirto, waxayna istiraamay cunugan yarka aabiis u sheegaa sidii xun aad ula dhaqmaysay iyo sidaasoo kale baahidii ay ku dishay. Bisla wax badan ay fikirtay, qaan waxay ku gaartay cunugani bal inay siiso cuntooyin nafaqaysan. subaxiga markii la gaarana waxay u diyaarisay cunto aad u macaan oo nafaqa leh. kadibna wiilka ayuu yeertay, waxayna ku tiri wiilkiiyo kaale cuntaan macaanka badan kaala ku raaxayso. cunugii markuu arko waa uu la yaabay, waxauna is yidhi see camal hee eedadii maanta maxaa ka qaldan, ma midii rootigay siinaysa ayaa maanta cunto ay siinaysaa. kadibna wuxuu yidhi tan waxay doonaysaa inay disho. kadibna wuxuu yidhi may eedo waa maasan tahay ma baahni maanta wax cunta xitaa ma rabo. bisla ayaa bilaabay cunugii inuu dhoola caddayso, dareen beenana ay tusto, waxayna ku tiri wiilkaygii waan ogaa qalad weyn ayaan kaa sameeyey, laakiin kaala waa ku baryaya cuntaa cun. cunugiina waa uu diiday. kadibna waxay ku fikirtay inay bannaanka adda bannaanka iyana soo aaday. kadibna farmasiga ayay booqatay, waxayna la hadashay dhakhtarkii, waxayna ku tiri dhakhtar waxaan doonayaa cunug yar oo 6 sano jir ayaa gurigii jooga, habateedka ayaana ka xidhan, marka waxaan kaa rabaa daawo ku habboon oona u furaysa dhankaasi cuntada, wax dhibaato aan u keenin ayaan kaa rabaa. kadibna daawo ayuu soo siiyey, wuxuuna ku yidhi tan ayaana ku habboon maalinkiina 2 marsi. iyadana waa ay ka aqbashay, aad bay u farxday. ninkayay lacagtiisa siisay, kadibna waa iska soo baxday. sharoobadii ayayna soo qaadatay, xaafadii ayayna ku soo laabtay. goortiisa xaafadii ay ku soo laabatay cunuga yarka cabitaankii ugu dhex dartay, sidaasoo kale bariiskii jikinka ayay meesha ugu diyaarisay. kadibna firiijka ayay u gelisay. saacado markay ka soo wareegatana cunugii oon ayuu dareemay, kadibna wuxuu soo aaday dhankaasi firiijka si uu biyo yar uga soo cabo. goorta uusay firiijka yimid cabitaankan ayuu arkay, isla markiina wuxuu bilaabay cabitaankii inuu cabo. laakiin goortuu cabitaanka cabayo wuxuu ogaaday baahi saa'idan uu dareemayo, wuxuuna u soo cararay dhankaas iyo weliba meeshii uu bariiska yiilay. cuntadii ayuuna isla markii bilaabay inuu cuno. goortuus cuntadii dhammeeyey ayuu baahi kala dareemay, iyadana cunto kale ayay u soo dhigtay ilaa cunugii cuntadii u cunay. hal asbuuc ayayna sidaasi ku waday. cunugii yarkaana wuu isbedelay. asbuuc kadibna aabiis ayaa guriga ku soo laabtay. cunugiisi yarka marka horkana wuu aamini waayey oo xitaa uu aqoonsan waayey siduu isku bedelay. aadamuna arrinkan aad buu ugu farxay. kadibna xaaskiisa ayuu u yimid weliba isagoo aamiinla, wuxuuna yidhi aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad cunugii u daryeelaysid. sidaasoo kale maskaxda wuxuu iska yidhi go'aan fiican ayuu ahay gabadhan inaad guursato, sababtoo si cunugay kaaga taxadarayso. dhan kale cunugga yariiskaay wuxuu ogaaday geemkan ay la ciyaaraysa eedadiisa. sidaasoo kale cunugga yarka wuxuu ogaaday inuu aabiis hadda waxba u sheegi karin oona dhihi karin baahi ayuu ugu dishay, sababtoo sida cunugga uu isku bedelay. isagoo isla hadlayana waxa uu yidhi haddii aabbay uu guurso islaantani noloshiida idil ayay burburi doontaa. wuxuuna bilaaba aabiis inuu yimaado, waxuuna ku yidhi aabba waxaan u baahanahay moobeel yar aan ku cayaaro, saxaabtii moobeella ayay leeyihiin. kadibna aabbihi waxa uu ku yidhi wiilka ka welwelin eedda ayaa kuu soo iibinaysaa. kadibna wiilku wuxuu bilaabay inuu ooyo, wuxuuna ku yidhi maya aab macaan adiga ayaan kaaga baahanahay. aadamuna wiilkiisa uu ka aqbalo, wuxuuna yidhi galabta markaan shaqada ka soo laabtay ayaan kuu soo gadayaa. wiilkiina aad buu ugu farxay, kadibna waa u bahay moobilka ayuuna cunuggii u soo gaday, farta ayuuna ka saaray. cunuggii yarkaana aad buu ugu farxay. subaxiga markii la gaarana aadamu wuxuu isku diyaariyey safarkiisa, xaaskiisa ayuuna halkaasi ku macsalaameeyey, isagoo u baxay arrimo yar oo ganacsi ah, uuna sheegay xaaskiisa inuu soo laaban doono isbuucyo kadib. goortuu sidaas guriga uga baxay ayay waxa ay bilowday xaaskii inay cunuggii si xun ay ula dhaqanto, gurigo idilna ay ku nadiifiso, xitaa dharka ay ku dhaqdo, habeenkiina laba xabo rooti keliya ay siiso. cunuggii yarka habeen ayuu geesis ka dhigay, kadibna qolkeeda ayuu soo aaday si uu weydiiyey sababta eedda waxaan u samaynayso. kadibna waxuu ku yidhi eedda waxaan ku weydiinayaa maxaa si aan xun ila dhaqmaysaa, waad ii jeeddaa aniga cunug yariis ayaan ahaye. goortausa intaas dhahay ayaa bisla isla markiiba cunuggii dharbaxsho ku dhufatay, waxa ayna ku tiri maxaa kaa qaldan waryaha, sidee ayaad isku dayday inaad aniga hortay soo istaagtid, kadibna su'aalahaas qaabta daran inaad aniga weydiisid, ma madaxa ayaa ku xanuunaya mise waxaad u baahan tahay noloshaada dhanba inaad ka samartid. teeda kale aan kuu sheegay ma waxaad doonaysaa waddadii ay ku dhimatay hooyada inaa adigana aad ku dhimatid. cunugga yarka markuu intaas maqla waa uu la yaabay, iyadoo hadalkiisii wadatana waxa ay tiri aan kuu sheegay sidai hooyadaa ku dhimatay. sheekadeenna waxay ku bilowday, waxay ku tiri habeen aan la keeno hooyada cuntada waxaan ugu darayay sun, arrinkaasna waxaan ku waday muddo bil ah, weliba suntaas aan siinaya cuntada aan ugu darayay ma ahan mid aan la aqoonsan karo ama jidhkeeda laga soo saari karo. suntaas ayaana sababeed xanuunkeeda ilaa xanuunkii ugu dambayntii iyada ay u geeriyootay. sababtan u dilana wax kale ma ahan maadaama iyada ninka aniga aan jeclahay ay igala wareegtay, anigana waxaan go'aansaday inaan ninkay dib u ceshto, iyadiina waa ka aarsaday oo micnaha iyadii dhanba waa ka takhallusay. cunuggii yarka ayayna ku soo jeesatay, waxayna ku tiri war adigana dhegayso, buuq haddii hadda igu furtid waddadii hooyada ay martaa ayaan ku marsiinayaa. waxayna sidaasoo kale u raacisay mar dambe haddii aniga hortii ay soo istaagtid lafahaga eeyaha ayaan sii doonaa intaan hilibkaadaan ka saaro. cunuggii yarka markuu intaasi maqlay aad buu u naxay, wuuna aamin waayey, xitaa lugihiisa waa u dhaqaaji waayey, meeshii ayuuna ku kogay, isagoo yaaban ayuuna go'aan ku gaaray wal inuu iska dhigo qof adaga, wuxuuna go'aansaday inuu hooyadiisa u argudo. si kastaba haatee asbuuc kadib waxaa soo laabtay aadamu, kadibna waxa uu arkay wiilkiisa aad buuna ugu farxay. cunuggii yarkana arrinkii aabiis lama uusan wadaagin oo wuxuu sugay inta xalfadda laga gaarayo.
kadibna aabbihii iyo weliba xaaskiisa waxay isku diyaariyeen arooskooda weyn ay dhigtaan. goobtaas arooska ka dhacayana waxaa loo diyaariyey si hagaagsan, weliba 2 maalin ayay qaadatay in lagu diyaariyo arooskaasi. maalinkii ugu dambeysay markii la gaaray waxay isku yidhi dhammaan qoyskoodil si arrinkan loo soo gabagabeeyo, laakiin arrin kale ayaa soo baxay. cunugii yarka ayaa wuxuu la hadlay dhammaan dadkii joogay, wuxuuna ku yidhi waxaan doonayaa in qolka fadhiga la wada imaado. maama aamina cunugan ayuu aadna u jecleen ayaa dadkii waxay ku amartay in amarkiisa la raaco, qolkana fadhiga la tago maadaama uu doonayo cunuga inuu iyaga la hadlo. ugu dambeynna way aqbaleen. dhanka kale bisle waa ay murugootay, waxayna istiri cunugan yarkan muxuu doonayaa inuu dadka u sheego, laakiin waxay istiri lacalla xitaa haddii arrinkii uu sheego qof isaga aaminaysa male, sababtoo waa cunug yariisa. waxayna sidaasoo kale sii diyaarsatay waxay cunugga isaga difaaci karta lacalla haddii arrinkii dhowr sheego, iyadoo xilligaasi sheeko male awaala samaysatay ii doontana lacalla haddii sheekadaasi oo marunta uu bannaanka keeno inay qof walba u sheegi doonto cunugan inuu xaaladiisa ay liidatay sidii hooyadiisa ay u dhimatay, iyadana intaasi xaaladiisa ay la tacaalaysay. si kastaba ahaatee goortii dadka ay qolkii fadhiga isugu wada imaadeen ayaa cunugii yarka dhexda istaagay, kadibna mid ka mid adeerkiis ayuu u yeeray, wuxuuna ku yidhi adeer macaane moobilkan waxaan kooga baahanahay inaad iskriinka ama tv-ga aad ku xirtid. ninkiina isla markii u orday iskriinka ayuu moobilkii ku soo xiray. goortuusu ku soo xiray wuxuu bilaabay in muuqaalkii la yidhi inuu daaro muuqaalka ayuuna isla markii daaray. dadkii ayaana isla markii waxay bilaabeen muuqaalkiina daawadaan. muuqaalkaadna wax kale ma ahayn, waa markii iyada ay qiranaysay siday u dishay cunugga yarka hooyadiisa. haddaba waxay is weydiinaysa yaa muuqaalkaas duubay. cunuggii yarka habeenkiisa qolka soo gelayay, moobilkiis yarka ayuu wuxuu soo hordhigtay meel yar si uu muuqaalka uga duubo. xilligaasna waxa uu doonayey inuu aabbihiisa tuso si ay isaga eediisu la dhaqmayso, laakiin uma uusan malaynaynin in sirtaan weyn bannaanka ay u soo bixi doonto. dadkii markay intaasi arkeen waa ay la yaabeen, waa ayna naxeen sirta weyn ee bannaanka timid. weliba waxay aamin waayeen bisle inay intaasi samaysay. aadamu aad buu uga murugooday. hortii bisle ogaatay in sirteeda la ogaato waxay go'aansatay inay meeshii ka cararto, laakiin isla markiiba walaalkiisa kaabiru ayaa gacanta ku soo dhigay. booliska ayayna isla markiiba ku wargeliyeen. booliska ayaana gurigii soo gaaray, isla markiina gacmaha ayay ka xidheen, iyadana xabsiga ayay u taxaabeen, xitaa caddayntiina hore ayay usii qaadeen maadaama wax walba iska cadiyeenna xabsiga ayaa iyada loo taxaabay. dhanka kale qoyskii aadamuhu goorta ogaadeen arrinkan aad bay uga naxeen. si kastaba haatee aadamu wiilkiis ayuu u tegey, wuxuuna bilaabay cunugiis inuu raaligelin weydiisto maadaama isaga sirtaanna uu ka indha lahay. wuxuuna u qaaday dhankaasii qabriga hooyadiisa, isagoo xitaa ubax hore usii qaaday halkaasna sii dhigay. wuxuuna bilaabay inuu xaaskiisa xilligaas cafis weydiisto, isagoo ku yidhi xaaskii iga raali noqo maadaama aniga isagoo aan u ahay waxaan adiga kugu dhacay. wuxuuna u sheegaya inuu ayada aad u jecel yahay. halkaas ayayna illimadu qubatay. dhan kalaan soo aadno 3 bilood markii ka soo wareegatay xiritaankii bislo ayaa maalinkii dambe maxkamadda la soo taagay. kadibna ninkii qaadiga ahay markii la tuscadayntii weliba wax walbay gabadha iyada u geysatay ayuu ninkii qaadiga ahay waxa uu dadka hortooda ka sheegay in gabadhani bislo xukunkeedu uu noqday in lagu xukumo xukun dildilaada, inta dilkeeda laga gaarayna xabsiga ay ku sii jiri doonto. goorta use qaadigii hadalkii sidaas u dhameeyey, bislo waxaa laga sugayay inay hadasho, laakiin maba aysan hadlin. waxayna ahayd qof aad ugu faraxsan. xilligaasna dhowlacdaynta waa laga dareemayey, inkastoo dadkii meesha joogay la yaabanaayeen gabadhan iyo weliba sida u dhaqmayso, iyadoo xitaa xabsidaayin lagu xukumay ayay weli sii faraxsan tahay. sidaasoo kale maalinkaas maxkamadda waxaa joogay ninkii aadamuu ahay, meesha ayuuna iska fadhiyey, aad buuna isaga murugaysanayay. laakiin markuu ogaaday in ayada dil lagu xukumay aad buu ugu farxay, xanuunka ayana waa u daayey. wuxuuna yidhi hadda jaceylkay waan guulaysanay, islaantii dhibka ku geysatana ayada kaama dambay doonto, way kaa daba imaan doontaa. si kastaba haatee booliska ayaa isla markiina gabadhii bisle meeshii ka soo kaxeeyey. goortaysi maxkamadaas uga soo saareen ayaa waxaa ka soo daba orday ninkii aadamuu ahay, waxauna ku dhahay bisley dhegayso, haddaana waxay kaa dhigatay saaxiibadeed ugu wanaagsan sida walaasheedoo kale, laakiin adiga ayaa sabab u noqotay inay ayada dhimato. waxaana ku doysanayaa dilkaagu inuu noqdo mid aad u xanuun badan. goortiisa ninkii aadamuu ah hadalkii oo u dhameeyey ayay ayada ninkii soo jalleecday, kadibna waxa ay tiri saaxiibay dhegayso, aniga hadda xabsi ayaan gelayaa, laakiin la soco markaan xabsigan ka soo baxo adiga iyo qoyskaada iyo dhammaan cunugas yarka aa dhashay inaan dhammaantiin aani burburi doono, weliba noloshiinnana dhulka aan ka hoos mari doono. tan hadda ay ugu samaysana wax weyn maahan. isla markiina booliska ayadu waa ay kaxeeyeen, baabuurka ayayna gudaha u geliyeen, meesha ayayna ka kaxeeyeen iyagoo dhankaasi jeelka u kaxeeyey. aadamuun isma dhibina meesha ayuu ka soo tegey, xaafaddiisa ayuuna dib isuga soo laabtay. waxauna bilaabay cunugiisa inuu daryeelo, wax walba u baahan yahan isaga u siiyo, sidaasoo kalena shaqadiisa uusan ka tegin. wuxuuna sidaasoo kale ka shallaayay inuu isaga xaaskiisa u badbaadi waayey, isagoo dareemayay dembi weyn inuu galay. aadamuuna wuxuu is yidhi waxaa wax kaliya ku sixi kartaa waxay tahay inaad hadda cunugaada si fiican aad uga taxadartid,
inkastoo maalmihii hore shaqada uu ka caajisay haddana walaalihiis ayaa mar walba garab taagnaay sidaasoo kale booska waxaan ka maqanayn hooyadiisa taasood maamaamina una sheegtay cunugan yarka inay isaga ka taxadiri doonto isagana ay la joogi doonto wax walbana ay u samayn doonto isagana waa aqbalay shaqadiisa ayuuna dib ugu laabtay dhanka kale noo soo celi bislow maalimo markii xabsiga ku jirtay isla markiiba asxaab ayay meesha ku samaysatay sababta way ogeyd xabsiga nolosha inay aad u adag tahay asxaab la'aanna aysan joogi karin waxay samaystay kuwo kale oo gaangiistara ah weliba lagu soo eedeeyey dilal fara badan haddii ayna kala baranna gabdhaha ay meesha ku samaystay waxaa ugu horraysay gabar lagu magacaabo agnes taasoo dembigeedu iyadoo ah inay dishay 6 qof weliba cunto sun ay ugu dartay gabar kaloo lagu magacaabo akamute iyadana lagu soo eedeeyey inay dishay gabdho yaryar sidaasoo kale meesha waxa ay ku baratay gabar kaloo iyadana lagu magacaabo amaka iyadana lagu soo eedeeyey afduub iyo weliba dambabe kale dhammaantoodna halkaas waxay ku sugayeen xilliga ayaga la deldeli doono bislo gabdhahanoo idil waxay uga sheekaysay sheeko khiyaaliya iyadoo ka dhaadhicisa ayada inaysan wax dembi lahayn sidaasoo kalena u sheegtay in gabar saaxiibteed ay khiyaantay ninkii ayada ay doonaysay ay guusrabtana oo ninkaasi kala wareegay kadibna ayada sidaa darteed xabsiga loo keenay weliba iyadoo lagu eedaynayo inay dembi gashay waxayna sidaasoo kale usii raacisisay inay hadda ayada ay doonaysay inay aarsato gabadhii waxaas u geysatana ay ka aarsato agnesna goortay sheekadaasi maqasho aad bay uga naxday iyadoona u sheegtay inay aad uga xuntahay waxayn dhacday anaka xaaladdan waa mid la fahmi karo oo dilil ayaan geysanay laakiin adiga dembila'aan ayaa tahay umana qalatid inaad halkan aa kusii sugnaatid goortay hadalkaasi bislan maqashana waxay bilowday inay saa'id u oyso waxayna tiri haddaana dhibaatadii ay ii geysatay qaabteeda waa mari doontaa keliya aan xabsigaani ka soo baxo agnes iyo asxaabteeda ayaanoo yimid waxayn dheen saaxiib isdeji wax walbana way hagaaganaa doonaan si kastaba haatee maalmihii xigana si wanaagsan ayay xabsigaasi ugu nooleed maadaama iyada ay la joogtay kuwo kaloo gaangistarraha mar walbana waxaa garabkeeda taagneed agnes taasaa qofka ugu horreeyay ee kooxda maamulayay lana socday dadkuna markay ku arkaan aad bay u buqi jireen umana soo dhowaa jirin agnes ayaan inta badan dadku u sheegi jirtay inay gabadhani ka leexdaan wax dembina aysan lahayn meeshaana si qaldan lagu keenay maxaabiistii kaloo xabsiga ku jirtana iyagana way aqbaleen gabadhaan uma sii dhowaa jirin ayadana arrinkaas aad bay ugu farxeed mar walbana sheekooyin been ayay dadkan uga sheekay jirtay si ay qalbiyadeeda u soo jiidato waqtigana sidaas ayuu ku socday maalmuhun asbuucyada ayuu isku dhibayey maalmihii xigana bislo iyo weliba asxaabteeda waxay bilaabeen isku dhowaadaan shirar gooniin ay samaystaan sidaasoo kale dadkiina way arki jireen waxayna isweydiinayeen dadkan waxay ka shirayaan waxa ay samaynayaan weliba waxay ka shakisanayeen dadkani inay baxsa doonaan dhan kale aan soo aadno aadamow wuxuu dib ugu laabtay barnaamijkiisii ganacsiga galab galbaha ka midana hooyadiis ayaa soo wada xilligaasna waa u mashquulsanay laakiin goortii moobeelka uu fiiriy wuxuu arkay hooyadiis marraba inay soo baxday wuxuuna isweydiinaya xilligan iyo waxa ay hooyadiisa ka rabto goortii hooyadiisaas u wacana wuxuu yidhi hooye macaan maxaa dhacay shir ayaan ku jiray waa isoo waad wax dhimaa jira maamadii ayaan isla markii waxay ku tiri wiilkaygiyow marar badan ayaan ku soo wacay laakiin mobilkayga maadan qaban waxaan rabay inaan kuu sheega arrin aadaamo oo yaaban ayaa yidhi hooye maxaa waaye wax dhimaa jira bal ii sheeg arrinku muxuu yahay maamadii ayaana wiilkii ku tiri wiilkaygiyo xala waxaan maqlay gabdho badan inay xabsiga ka baxsadeen kuwaasoo la doonaya dil toogashaha in lagu fuliyo marka wiilkaygiyo ma laga yaabaa tii inkaan qabtada ahayd ee bislo in ayadana dadkaas baxsaday ay ku jirto sababtu waad og tahay markii xabsiga loo sii kicinayay siday kugu waajibaysay eena doonaysay inay dhammaan qoyskaada ay burburi doonto goortii aadamo intaasoo maqlay aad buu u naxay kadibna hooyadiis ayuu wuxuu yidhi hooye macaan arrinkaas muubta kadibna waxay tidhi wiilkaygiyo ani ma sheegi karaa ayada inay baxsatay laakiin waxaan maqlay gabdhaba inay xala baxsadeen maamadii ayaana ku tiri waa laga yaabaa inay kuwaas ay ku jirto kuwii baxsaday aadamu oo aad u naxsanayaan islamarkii waxa uu yidhi okay hooye macaan iisug waxaan wacayaa walaalkay isaga ayaan arrinkaas iisoo kala xaqiijinayaa maamadiina waa ka aqbashay islamarkiina walaalkiisa ayuu wacay wuxuuna ku yidhi saaxiib waxaan kaa rabaa halan inay soo ogaatid waxaan maqlay xalay gabdho badan inay xabsiga ka baxsadeen marka waxaan kaa rabaa inaad soo ogaatid gabdhahaas xabsiga ka baxsaday inay ku jirta bislo kadibna wuxuu yidhi okay aniga ayaa kuu soo ogaanaya wuuna soo jeegaraynaya kadibna jawaab kuu soo celinaya gawarsug kadibna waa uu ka aqbalay walaalkiis kibrona wuu baxay xabsiga ayuuna tegey wuxuuna bilaaba gabdhiin oo kasoo fiiriyo intuusan xabsiga kusii maqnaay walaalkiis waa uu sugayey wuxuuna la yaabanaya sababtuu daqiiqadaha faraha badan u qaadanayo ugu dambayntii walaalkiis ayaa soo wacay goortaasuu moobilkii sidaas u qabtay ayuu waxuu ku yidhi igu waran haye saaxiibow gabadhii meesha ma joogtaa laakiin kibro ayaa islamarkii waxa uu ku yidhi maya saaxiibow ee bislo waxay ku jirtaa gabdhihii xalab baxsaday goortausan ninkii intaasi maqla aad buu u naxay dhulka ayuuna ku dhacay wuxuuna bilaaba meeshii inuu isaga qayliyo sababto wuxuu ogaayay cunugiisa inay hadda xaaladiis halis ku jirto wuxuuna isla markaas xasuustay wiilkiisa inuu iskuul ku jiro islamarkiina shaqadii ayuu iska joojiyey furihii baabuurka ayuuna daf yidhi waxa uuna soo aaday dhankaasii baabuurkii isagoo xilligaasi aad u cabsanayay kana cabsanayay in bislo ay iskuulka tagto cunugiina ay ka qaadato isagana baabuurka ayuu si xawaarle u soo kaxeeyey inkastoo xilligaasi aadamu meesha uu ka shaqaynayay weliba iskuulka ay kala fogaayeen haddana u marna ma uusan istaagin baabuurka ayuuna soo dhaqaajiyey oo dhinacaasi iskuulka ayuu soo aaday waxuuna inta waddada kusii jira dhahayay wiilkaygii lagma yaabo haweenaas inay iga qaadato
awalay hooyadii dish haddana waxay doonaysaa inay isaga ay ka takhalusto laakiin intii uu waddada soo socday ayuu wuxuu ogaaday meeshii jaam inay tahay jaamkaasna waxa uu wacnay in baabuur weyn meesha uu shil ku galay sidaa darteedna waddadii ay xirantay ninkan markuu arkaan aad buu qayli wuxuuna yidhi macquul maan maxilligan oo kale ayaa waddada xirmataa isla markiina go'aan wuxuu ku gaaray inuu baabuurka uu ka soo tago baabuurkana meesha uga soo tago wuxuuna u soo cararay dhankaasi iskuulka isagoo walwalkiisa ugu weyn u ahay siduu cunugiisu badbaadi lahay iyo islaantaas inay dhaawac u geysan wuuna soo orday wax badan uu soo ordayay ugu dambayntiina waxa uu soo gaaray iskuulkii albaabka hore askariga ayaa taagnaa waa uu dardaray kadibna toos wuxuu u aaday fasalkii cunugiisa uu ku jiray goortiisa uu fasalkii tegayo macallimaddii waxa uu weydiiyey aawe cunugaygii macallimaddii oo yaaban ayaa tiri war maxaa dhacay ma fiicanta aadamo kadibna wuxuu yidhi dhegayso waqti uma hayo su'aalahaada nacasnimada inaan kaga jawaabo waxaan ku weydiinayaa cunugayga aaway macallimaddii oo naxsan ninkan la yaabanaya waxay tidhi bannaanka ayuu ku cayaarayaa isaga iyo weliba carruurta kale isla markiina isagoo wax kala suganayo isla markii bannaanka u soo cararay isagoo markaas rajeynaya cunugiisa inuu halkaasi keeni doono isla markiina wuxuu bilaabay cunugii inuu ugu yeero magaciisa nasiib darase cunugii ma uusan helin kadibna wuxuu bilaabay carruur meesha fadhiisa inuu weydiiyo waxayna u tilmaamay inuu weydiiyo cali sababta cali ayay cunugaas saaxiiba yihiin isla markiina cali ayuu ku soo jeestay kadibna wuxuu ku yidhi cali waxaan ku weydiinayaa wiilkayga yarka ma aragta maadaama adiga saaxiiba ahaydeen cali ayaan isla markiiba waxa uu ku yidhi wax yar ka hor waa isla ciyaaraynin laakiin wuxuu ii sheegay inuu musqusha aadayo isagoona hadalkii cunugii dhammayna isla markiiba waa uu cararay aadamu ninkasi musqusha ayuuna u cararay isagoo rajeynaya inuu cunugiisa halkaas ka heli doono laakiin musqulihii dhan waa uu ka waayey meeshii ayuuna uga yeray nasiib darase waa uu ku guuldaraystay inuu cunugiisa helo aadamu oo aad u caraysanaya isla markiiba wuxuu soo aaday xafiiska maamulaha iskuulka kadibna wuxuu yidhi waxaan u baahanahay cunugaygina helo maamulihii oo yaaban ayaana u sheegay in cunugiisa loo heli doono isagana u isdejiyo laakiin isaga aad buu u caraysanaya waxuuna ku yidhi dhegaysta weliba isagoo qaylinaya waxaan ku dhaaranayaa haddii cunugayga aan heli waayo in iskuulkan oo dhan aan burburi doono weliba isagoo idilna aan dambasu bedeli doono cunugaasi dartiisa isla markiina meesha ayuu ka soo dhaqaajiyey toosna wuxuu u soo aaday baabuurkiisa isagoo gudaha u soo galay xilligaasaan doonayey inuu arrinkaani boolisku wargeliyey maqnaashiyaha cunugiisa aadamu oo aad u caraysanaya baabuurkiisa faraha ku duuday toosna saldhiggii u soo aaday goortuusa saldhiggii sidaas ugu soo dhowaaday doonay inuu baabuur ka soo dega ayaa moobeelkii laga soo wacay lambar uusan aqoonayana soo wacay goortuusa moobeelka qabta waxaa la yidhi helow aadamuuse goortuu codka sidaas u maqlay aad buu u naxay kadibna qofkii kool ku jiray taasoo ahayd bisla ayaa waxay ku tidhi wadaay dhegayso cunugaagii aniga ayaa haya aadamu isla markuu intaasi maqla aad buu u naxay cabsi ayuuna dareemay kadibna waxa uu ku yidhi biliis waan ku baryayaa cunuga siriiska ha iga daawicin oo dhibaato weyn ha iga gaarsiin wax walba u baahantana waa ku siinayaa goortiisa bisla intaasi ay maqashay qosol ayay ku dhafatay waxayna tidhi ha igu dhihin cunug yariisa inkaarqabahaasi sababtoo waa ninkii ii diray inaan xabsiga galo keliya intaas iguma use keena xitaa waa cunugii sababta u noqday in aniga laygu xukumo daldalaad ama toogasho keliya intaas iguma ekayni waa cunugii gurigiiga soo fogeeyey farxaddii quruxda badneed aan ku noolaanno waa cunugii burburiyey sidaasoo kale guurka adiga aan doonay inaan isguursanana isaga ayaa sabab u noqday xilligaasi bisla ay la hadlaysay ninkan aadamu cunugga yarka kursiga ayuu fadhiyey meesha ayuuna ku xirxirnay waxayna tidhi cunugan doqonka waxaan u malay doonaa noloshiisa inaan burburi doono haddii waxaan u baahan anigaad iga siin bisla cunugga yariiska ayay ku soo jeesatay islamarkiina waxay bilowday inay dharbaaxshooyin ku dhufato cunugiina wuxuu bilaabay inuu ooye waxauna yidhi aabba macan waan ku baryayaa kaalay badbaadi goortuu aadamu intaasi maqlay qalbi xanuun ayuu dareemay wuxuuna ogaaday cunugiisa xaaladiisa inay liidato kadibna wuxuu ku yidhi waan ku baryayaa bisla cunugga yariiska sidaas ha u ciqaabin wax walbood u baahantana waa ku siinayaa iyadana waxay tidhi anii dhegayso hadalkayga kaftan ma ahan haddii aa isku dayid inaad booliska arrinkan la wadaagtid la soco cunugaada waan ka takhallusayaa haddana waxaan adiga kaaga baahanahay lacag inaa isiisidne isagana isla markii waxa uu yidhi lacag walbood u baahanta aniga ayaan ku siinayaa ee cunugay waxba iga gaarhsin xilligaasi wuxuu joogay saldhigga booliska hortiisa isla markiina baabuurka ayuu kala fireeyey wuxuuna soo aaday dhankaasi xaafaddii weliba isagoo walwal saa'id ahaya goortuusa gurigiisii aad u soo gaaray isla markii baabuurkiisa ayuu baakin geliyey kadibna qolkiisa ayuu aaday waxauna bilowday inuu ducaysto isagoo ku ducaysanaya cunugiisa inaysan waxyeello soo gaarin islaantaasna aysan dhibaato u geysan goortuusa ducada sidaasoo u dhammeeyey moobilkiisa ayaa isla markiiba soo qayliyey isagana wuxuu bilaabay moobilkii inuu fiiriyo qofka lama aysanaya bisla ayaheed waxayna ku tiri ninkaygii waran kadibna wuxuu yidhi igadaa su'aalaha nacasnimada ii sheeg maxaad u baahan tahay
si aad aniga cunugayga igu soo dayso. Iyadana isla markii hadashay waxayna tiri waxaan u baahanahay lacag 1,000,000 oo neera ah. Haddii lacagta ay siinayso cunugaaga isagoo nabad qaba ayaan kuu soo deynayaa. Aadamuhu goortuu lacagtaasi maqla wuxuu yidhi ha ka cabsan lacagtaas aniga ayaa ku siinaya. Iyadana waxay tiri haddii khiyaano ay samaysay la soo cunugaaga ayaan ka takhalusi doonaa midkiisa ayaana kuu soo diraya. Aadamu ayaana ku yidhi wax khiyaano kuuma samayn doono lacagtaasna kaashahayaan kuugu soo dhiibayaa. Meesha keliyana ii sheeg. Waxayna tiri aniga ayaa kuu sheegaya meesha. Isla markiina waa uu soo orday si uu lacagtaasi u aruuriyo. Hooyadiis ayaana isla markii aragtay waxayna tiri wiilkaygii maxaa kugu dhacay maxaadna sidaan u degdegaysaa. Isagana wax walba uga sheekeeyey weliba cunugii inay qaadatay bislo lacagna hadda ay ka dalbatay. goortaysa maamadii intaasi maqashay waxay tiri maxaa kugu dhacay wiilkayga booliska maxaa ula wadaagi weysay. Kadibna wuxuu yidhi hooyo macaan maxaa kaa qaldan ma waxaad doonaysaa cunugayga in layga dilo. Haddii arrinkan booliskan la wadaa waa ogtahay naagtaasi inay cunugayga ka takhalusayso. Marka waan ku baryaa hooyo macaan arrinkani booliska la wadaagin lacagtaas ayaan hadda doonayaa inaan ayada siiyo. wuxuuna sidaasoo kale hooyadiis ku yidhi hooyo waxaan u baahanahay lacagtaasi bangiga in layga soo saaro si aan ayada beri lacagtaas ugu geeyo. weliba kaash ayayna iga codsatay. maamadii ayaana waxay tiri wiilkaygiiyo ka warran haddii ayada aan la hadlo waxaa laga yaabaa inay ayada xushmaynayse. kadibna wuxuu yidhi hooyo uma malaynaye laakiin waxay tiri ka warran haddii aa wacdid. isagana wuxuu u sheegay lambar aan la aqoonin ayada ka soo wacday. waxayna tiri okay ka warran haddii aan sugnayntii naga soo wacayso. kadibna way aqbaleen waxayna bilaabeen inay sugaan. saacado ayaana ka soo wareegtay soomaysa wicin laakiin maray saacaddu ku beegan tahay 12 habeenimo ayaa mobilkii soo dhacay. aadamu ayaana mobil ku saartay isla markiina waa qabtay. kadibna waxa uu yidhi hallow bislo hooyadii ayaa doonaysa inay kula hadasho. kadibna mobilka ayuu dhibtay waxayna ku tiri gabadhaydii waxaan doonaya inaan kula hadlo. bisla ayaa isla markii tiri oo sugbal goorme aniga gabadhaadan noqday. teeda kale haddii gabadhaadaan ahay ama nafteeda qiime ay kugu leedahay maxaad xabsiga igu dirtay. teeda kale dhegayso haddii waxaan u baahana ay sii weynso la soo cunugiinna ayaan dili doonaa kadibna meydkiisa ayaan ii soo diri doonaa. marka waxaan kaga baahanahay maalinta beriya lacagtaas inaad ii keentiin. haddaysan ahaynna cunugan waa ka takhalusi doonaa. sidaasoo kale booliska haddii arrinkan la wadaagtiinna cunugaani mar damba sii arki doontiin. waxayna ku tiri waxaan u baahanahay mobilka inaad igu dhiibto ninkaasi. isla markiina mobilka ayuu qabtay aadamu. kadibna wuxuu yidhi lacagtaada waa diyaar beri ayaana kuu keenayaa. ii sheeg haggee ayaan lacagta kugu keenaa. bisla ayaan isla markii waxay ku tiri waa inaad amaradii raacdaa. isagana hayo ayuu ku yidhi. kadibna waxay tiri qalin iyo bog haddaa haysid adreskan qoro. adreskan ayaana beri lacagta ay ugu keenaysaa. isagana isla markii uu ka aqbalo wuxuuna bilaabay adreska ayada u sheegtay inuu qorto. goortiisa ninka adreska uu sidaas u qortay ayay mobilkii ku demisay. sawixigii markii la gaarana lacagtii ayuu bangiga ka soo qaaday. lacagtiina waxa uu ku shubay boorso. xilligaas guriga xitaa waxaan joogay aadamu aabihiisa. markuu wiilkiisa baxayuuna isla markiiba isaga waxuu wacay booliska. adreskana wuu hayay arrinka ayuuna la wadaagay. booliskana wuxuu ka codsaday inay ninkaasi ay dabagalaan ogaadaanna gabadhu meesha ay joogto. booliskana waa ay aqbaleen. dhanka kale aadamu isla markiiba waa uu soo baxay wuxuuna imaaday meesha isaga loo tilmaamay. goortu soo gaara baabuurka ayuu ka soo degay. meeshii ayuuna bilaabay inuu ku sugo laakiin saacado ayaa ka soo wareegay ilaa haddana qof meesha ma uusan ku arkin. sidaasoo kale booliska ayaa goobta soo gaaray. iyagana meel dheer ayay ka daawanayeen oo wixii kor kala socday ninkan aadamu ahay. aadamuna isaga lama u socon boolis inay meesha joogaan. aadamu intuu halkaasi ku sugayay gabadha waxuu la yaabanay meeshan iyo weliba siday tahay. wuxuuna ogaaday meeshaan ayba ku kulmaan dadka gaangistarada ah. laakiin wuxuu isweydiiyey siday gabadhaani xabsi uga soo baxsatay. sidaasoo kale bilahaas yarka say gabdha kula yeelatay. haddaba wax isweydiinaysa uga soo baxsadeen gabdhahan si kale uma ay soo baxsan. mar walba iyaga ay kulmaayeen waxay ka hadlayeen sidai ugu baxsanayeen meeshan. maama agnes ayaana mar walba ugu horraysay barnaamijka baxsadana saas ugu soo jeesay. sidaa darteed ayay xabsi uga soo baxsadeen. saacada markay ka soo wareegatana mobilka aadamu ayaa soo dhacay. islagiina wuu qabtay. kadibna wuxuu yidhi walaalay maxaa kugu dhaca meesha ayaan joogaa maxaan sameeyaa lacagtan hagee ku dhigaa. iyadana isla markii waxay tiri waan kuu jeedaa. kadibna wuxuu ku dhaca 4 saac ayaan ku sugaya si camal iyadana waxay tiri aniga kor ayaan kaa daawanaya waxaana doonayaa xanuunkaada inaan arko sababta waxaan ogahay xanuunka aniga ay marsiisay. goortaas intaas maqla wuxuu yidhi okay dhib male hadda waxaan u baahanahay cunugayga inaan arko. bisla ayaana ku tiri dhinacaada midig soo fiiri. isagana waa uu soo fiiriyay. iyadana waxay bilowday cunug inay xarigay ka soo furto. kadibna waxay u soo kaxaysay dhinacaas. cunugana xilligaas daruuf ayaa ka muuqatay. goortaas cunugii aabbiha arkay uu ooyey wuxuuna yidhi aabba macaan. isla markiina aabbihi xilligaasi hadka ayuu ku jira cunugiisana wuu arkayey. wuxuuna yidhi ha abbacaan ha ka cabsan aniga ayaa ku badbaadinaya. wuxuuna ku soo jeestay bislo wuxuuna yidhi lacagtaadii waa tan ee cunugayga ii soo daa. iyadana waxay tiri waxaan kaa rabaa lacagtaasi dhulka inaad dhigtid
isagana wuu ka aqbalay isla markii boorso ayuu baabuur ka soo saaray lacagtii ayuuna dhulka dhigay goorta uusan lacagtii sidaas u dhigay wax yar kadib waxaa guriga jabnaay ka soo dhex baxay gabar taasoo ahayd maama agnes waxayna bilowday lacagtii inay meesha ka qaado kadibna gudaha ayay saas ugu laabatay isagana isma uusan waalin kadibna waxa uu ku yidhi wakbar yahayd cunugii iisoo daa bislase goortay aragtay lacagtii in la qaaday isla markiiba cunugii waxay tidhi baxwarya iyadoo hore u soo tuurtay cunugiina isla markiiba isagoo faraxsan ayuu wuxuu u soo orday dhankaasi aabihiis aadamu aad buu ugu farxay inuu arko cunugiisii laakiin nasiib darase cunugii goortii uu sidaas ugu soo dhowaaday ayaa waxa dhacay wax kaloo aan la filin waxaasna wax kale maahane aadamu wuxuu arkay cunugiisi oo dhulku sii dhacaya sababtuu cunuga dhulka ugu dhacna wax kale ma ahayn bisla ayaa cunuga gadaal ka toogatay oo xabad ayay dhabarka uga dhufatay isla markiina aadamu cunugiisa ayuu ku soo orday waa uuna qabtay wuxuuna arka cunugiisa inuu nuuxsanayn aad buuna u nahay waxa uuna yidhi maxaa kugu dhacay maxaa si aan u samaysay iyadana isla markii waxay bilowday inay cararto laakiin booliska ayaa isla markiiba soo baxay kadibna waxay ku dheheen waa inaad qoraga dhulka dhigtaa iyadana waa ay diiday isla markiina waxa ay bilaabeen inay meeshii ay ku toogtaan oo xabado ay ku furaan meeshii ayayna ku dhimatay dhanka kale aadamu xilligaas maskaxiisa ma joogin cunugiis ayuuna ka fikirayay meeshii ayuuna bilaabay cunugii inuu ka soo qaado sidaasoo kale booliska ayaa isla markiiba waxay dalbeen ambalaas degdega ambalaasta ayaana meesha soo gaartay cunugii ayaana isla markii la geliyey kalkaaliyaasha ayaana bilaabay cunugii inay la tacaalaan xilligaasna aadamu wuxuu ka codsanayay kalkaaliyaasha in cunugiisi yarka ay badbaadiyaan iyagana waxay u sheegeen intii tabartooda inay la tacaalayaan isla markiina waxay ula soo carareen dhankaas isbitaalka intii waddada uu ku soo jirana waxa uu dhahayay darawaliinta waa ina baryayaa ku dhaqsada ugu dambaynna isbitaalka ayay soo gaareen goortaysa soo gaareen cunugii isla markii waxaa loola cararay qolka emergensiga degdega waxaana la bilaabay cunugii qalliin lagu sameeyo xilligaasi aadamu bannaanka ayuu joogay aad buuna u murugaysanay mar walbana kalkaaliyaashu wuxuu weydiinayey cunugiis iyo weliba siday xaaladda tahay iyagana xilligaas waxay bilaabeen inay qalbigu dejiyaan iyagoo u sheegay inuu marna cunugooda caafimaadi doono aadamuna uu aqbalo meesha ayuuna iska fadhiyey xilligaasna wuxuu ka cabsanayey inuu cunugiisa weydiinan sidii uu xaaskiisoo kale u waayey isagoona xilligaasi ballan qaaday in haddii cunugiisa uu soo ficnaado marnaba uu ka fanagaa doonin garabkiisana uu taagnaa doono ugu dambayntiina saacada markay ka soo wareegatay dhakhtarka ayaa bannaanka u soo baxay isagana dhinaciisa ayuu ku soo orday waxaanu ku yidhi dhakhtar waan ku baryaa isha cunugii hadda xaaladiisa waa sidee dhakhtarka ayaana madaxa u ruxay wuxuuna ku yidhi hadda cunugaad horta waa badbaadinay oo xabaddii dhanka dhabarka gasha waa ka saarnay laakiin hadda koomo ayuu ku jiraa teeda kale dhanka dambe ee dhabarka weliba laftan dambe ee spinal codka ayaa waxaa ka soo gaaray waxyeello weyn aad bayna u adag tahay cunugana hadda wixii ka dambeeyey lugihiisa inuu ku socdo laakiin bilooyin kadib waxaa laga yaabaa inuu isaga iska fiicnaado sidaasoo kale dhakhtarka wuxuu ku yidhi intaanan ka tabarteenna waan dadaalaynaa goortuu aadamu intaasi maqlay waa uu yaro farxay maadaama cunugiisi weli uu nool yahay isla markiina wuxuu wacay walaalkiisa kibru wuxuuna u sheegay cunuga xaaladiisa iyo weliba dhanka dambe inay waxyeello ka soo gaartay wuxuuna sidaasoo kale weydiiyey arrinkii bisla iyo weliba tiimkeeda sababtoo isaga xilligaas wax lama uusan cunugiisa ayaana mar walba u muuqday walaalkiis ayaana waxa uu ku yidhi booliska ayaa gudaha meeshu sii galay isla markiina meeshii waxay ku toogteen dhammaan kooxihii weliba agnes iyo tiimkeedii bislana halkaas ayay ku geeriyootay meydkooda ayayna meesha ka soo qaadeen sidaasoo kale booliska ayaana waxay u sheegeen dadkii baxsaday dadka shacabka in dhammaantooda la toogtay goorta uusan intaasi maqla ninkii aadamu ahay aad buu u farxay kadibna waxa uu bilaabay inuu cunugiisa mar walba isbitaal ku soo booqdo isagoo rajeynaya mar cunugiisa inuu koomada ka soo baxo 5 asbuuc ayuuna sidaas ugu soo laalaabanayay welina cunugiisa kama uu soo bixin koomada meesha ayuuna ku jiray isagana marnabo kama uusan iyo jabin mar walbana wuxuu cunugiisa ugu duceynayay inuu ka soo bixi doono koomadan uuna caafimaadi doono sidaasoo kale hooyadiisa aamina ayaa cunuga mar walba isbitaal ku soo booqan jirtay cunugan u ducey jirtay wiilkadan waxay ku dhihi jirtay wiilkaygiyow marun cunugaada wuu soo kici doonaa markaa walwelin 7 asbuuc markii ay ka soo wareegatay subaxyada ka mid ah subaxaasi aadamu cunugiisa ayuu ag fadhiyey wuxuuna arkay gacantiisa oo nuuxsanaysa haddana wuxuu daawaxana waxa maskaxda ka raadhicisay laakiin cunuga ayaa isla markiiba indhihiisa oo kala qaaday goortuu arkana aad buu u farxay meesha uu fadhiyay ayuuna ka soo booday kadibna cunuga ayaa waxa uu ku yidhi aabba macaan goortuu maqle aad buu u farxay cunugiisa ayuuna ku soo orday isagoo halkaas hab ku siiyey sidaasoo kale dhakhtarka ayaa isla markiiba meesha soo gaaray si uu cunuga xaaladiisa u jeegarayo kadibna wuxuu ogaadaba cunugan inay hadda xaaladiisa fiican tahay wuxuuna ku yidhi 3 maalin kadib cunugan waa kaxaysan kartaa kadibna wuxuu bilaabay cunugii inuu u socdo kursiga curyaaminta 3 maalin kadibna wuxuu ka soo saaray isbitaalkii kadibna xaafadiisa ayuu keenay xilligaasi cunugii yarka guriga waxa lagu sameeyey xaflad soo dhaweyna maadaama isaga u badbaaday aabahiisna wixii intaasi ka dambeeyey cunugiisi wuxuu bilaabay inuu ka taxadaro xilli walbana wuxuu halkaasi ku sii diray tababar isagoo mar uu rajeynaya inuu cunugiisa fiicnaa doono sidaasoo kalena cunuga yarka awiisa mar walba garabkiisa ayuu taagnaay 5 bilood markay kasoo wareegatana cunugii waxa uu bilaabay inuu yara is istaago sidaasoo kale 10 bilood markay kasoo wareegatana
cunugii markii dambe lugihiisa ayuu ku istaagay goortuu soo arkay ninkii aadamu ahay aad buu ugu farxay maadaama hadda cunugiisii lugihiisa ay u fiicnaadeen saxaabay qisadeenna halkaas ayay kusoo gabagaboobeysaa haddaba cashirka sheekadan aan ka baran karna waxay tahay inaad iska ilaaliso horta dadka aad saaxiib ka dhiganaysid sababtay ugu cantaha waxay tahay in gabadhan yarta ee aadaana ay saaxiibadeeda aamintay saaxiibadeedna khiyaanta maantana sabab u noqotay in ayada disho marka iska ilaaliya asxaabay dadkaad asxaab la noqonaysiin sidaasoo kale waxaan rajeynayaa adunkana cashir inaad ka barateen nagow inaad muuqaalkan like saartaan channelka dadka cusubtaana subscribe-ta naga ilmaamin oo walaalkiin barqadooni leh sidaas iyo amaana allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh